السلام عليكم أصحابتا janalka ku xiran asxaabteyda say tihiin say ku barideen say ku horgasheen asxaabta waa idin salaamaya waxaan rabaa inaan idin dhaho salaamu allah calayk ramadaan mubaarak ramadaankiisa nabad iyo kheyr allah nagu gaarsiiyo meel kasta oo dunida ka joogno salaan saran habada idiin soo marinaya asxaabta kusoo dhawaada janalkeyga Deeqa Juuro janalkeeda kusoo dhawaada haddaa janalka cusub tahay fadlan subscribe hoos isaar like and share sifa ula socotid waxyaalaha janalkan aan kusoo gudbiyo aan dadka la socodsiiyo aan soo socodsiiyo asxaabta waxaan jeclahay maadaama ramadaan ay tahay stories waxaas inaan dadka ugu sheekeeyo inaan idiga sheekeeyo sheekadan waxay ku dhacday gabar Soomaali ah gabar walaashan Soomaaliya ku dhacday waa Ohio State degan wadanka Mareykan degan gabadha waxaa la dhahay Tusma la dhahay Safiya Tusma ma ahan yaa sheekadan gabadhan Tusma la magacaas ay leedahay gabadhan waxaa la hooyay ahayd single mother ahayd waxay lahayd laba caruur yaamawi ee lahayd ama ka badan ma xasuusto laakiin sheekada u maqlay I think she has hada caruur ay leedahay magaalada Ohio deganeed oo iska shaqaysanaysa gaari yar u socday guri yar oo waxay iska haysatay low income kala arag ma fahantay nolosheeda u kala kacsaneed shaqadeeda aadaa caruurteeda dhiikir ka soo qaadataa maxallaha iidii caruurteeda iska faraxsanaayeen nolol macaan iskaga nooleed maalmaha kamid ah waxay baratay wiil Soomaali oo truck driver ah ayay baratay bas wiilka way sheekaysteen caruurtay keentay caruurta way bartay maxallaha qoftaan maxallaha waa hooyo oo hore guur u soo martay mugtay wiilka marka xaas kale ayuu gobol kale ku lahaa marka waxay tiri maxallaha asgurtan u dhaabaayo abaara sheekaysanay cunay laba qof waaweyn aan nahay oo guur hore u soo maray gabadha marka wiilka inuu reer kale oo another state Minnesota ku leeyahay ninkan maxallaha noloshiisa dhan ma ogeyn marka ayada inuu xaas kale uu Minnesota ku leeyahay maysa ogeyn bas ayay tiri way isguursadeen cabaar marka isqabeen wiilka maxaa la dhahay guriga address ayuu ka dhigtay wiilkan waxa u soo dhacay baakajo wuxuu dhahay abaayo baakajadaha iga taawanin baakajadeeda please meel ii saar maqana email ii dhig bas boxkiisa u soo dhacaya kan fureyso meel u dhigtaa uu imaada boxkiisa hore u qaataa oo soo dhacaa bishii hal mar wuu furaa meel u qaataa bas maalmaha kamid abana qoftaan ilbaabka loo soo garaacaya gaw albaabka markay furto waxaa lahayaa hello gurigan adresskan ma iskale magacaaga Tusma hebel sooma ahan dhab qararab waa la jeebeynayaa xabsiyaa lagu tuurayaa way yaabay waxay dhisaa bismillah what's going on marka waxa jeebeynaya kaxeynaya waa FBI da wadanka Mareykan kaxeynayso bis marka la geeyo xabsiga waxaa la lahayaa adiga adresskaagan dhowr bilood waxaa kugu soo dhacday maxal bilood ma adii sanado FBI da qaadataa adii sanad ama 2 sano ay qaadataa FBI marka ku baarayaan bilooyin ma aha wixii xuwaaneen kula imaanay xaqiiqadii ilbaabkaaga soo garaacaan kama baxsan kartid sheekadaas nihiye iyo lawyer iyo waxaas inta ma keysan kartid ma faadadii ilbaabka ku soo garaacdo waa ahaatay bis waxaa la abaay macantu adresskan xataa picture waxaa laga qaaday iidoo marka delivery loo keenay oo maxallaha astaghfirullah delivery waxa u keenaya ba sheekooyinka hadda aan barbaranaya dulqaad delivery maalmaha kamid ah waxaa ku jira maalin xataa wiil oo cadaan ah oo FBI boxka u keenayaba oo ay ka qaadanayso ayaa picture laga sii hayaa qoftaan picture laga sii diyaariyay iyadoo boxka qaadanayso iyadoo oo maxallaha saxiixaysa inta saxiixa lahaa way ka saxiixaysaa ma fahanti bas boxkeeda qaadanaysaa way u saxiixaysaa picture laga hayaa wixii oo dhan la soo hordhiga gabadha weli ma fahansan waxay dhisaa what's going on aniga boxkan wiilka isqabnay xaajigeyga leh maxallaha ayay maxaa ku jira boxkan markaas waxay dhahaan muqaadaraad kala gudbinaysay waxaan ahayd wada biggest dealer magaaladan oo hay deganaa oo muqaadaraadtan jaadka loo yaqaano oo mamnuuca ka ah wadanka ayaa wadanka soo galinaysayba way naxaysaa telefoon ii dhiiba way wacaysaa ninkii telefoonka kordhan ugu xirtay adresskiisii wuu bedeshay meel alaala meeshu ka dhacay ay weynaysaa way wacaysaa tolkeeda imaanaya wiilka waa la raadinaa
waa lasoo helayaa wuxuu dhaha naagtaas aniga marka hore single mother ahayd ana maxaa lahay waan guursaday haddana markaa waa kala tagnay isma qabno nin Soomaali jaad kadaya ma faa'iidahe gabadhaana ma aqaani maxaa lahay waan guursaday waana kala tagnay waxaan markay sheegata anima iyo qof kale u keenaa u malayaa hadii sheekada uu ku inkarayaa gabadhii xabsigaa la geynayaa 12 sano aa loo jarayaa xirig ah mogaada gabadha inay soo baxday in kaleete ilaaha u gargaaro marka sheekadan waxaa dhihi lahaa gabdhaha Soomaalida ma aragtay ha ka wacyi qaataan iyo wiil iyo gabarba ilaa ma Afrika joogtid ama Amerika joogtid haddii qof si kasta u jeclow sometimes qofka jecel markuu hayo their love blinded ma fahantay jecelka sometimes wuu ku indha taraa ma fahantay laakiin qofkaaga markuu uu maxallahay guriga wax keensanayo la ogow boxka abuu noo fur ama maxallahay fiiri ma fahantay aniga Allah u aclam sheekada gabadha ninkan dhiil mu u jaray lacag mu siiyay sometimes dadka way inkaraan sometimes qofka guriga qaadi kara wuxuu dhihi karaa baayo lacagtaas ku siina ku $1 bishi qaado maxalla alaabtan guriga igu soo degto Allah u aclam laakiin gabadha waxay ku dhaaratay inaysa ogeyn way maxallahay alaabtaas gurigeeda ku soo dhacay inaysa ogeyn ku dhaaratay I think maxallahay looyarada waxay ka qaadayaan FBI waxay ka qaadayaan polytest ama polygraph waxa la jiro oo runtii beenta ah dhowr jeer haday ka qaadaan testigaas waxa laga yaabaa inay ku baasto maxallahay saddex loo soo yareeyo haday run sheegayso marka ilaaha u gargaara gabadhaas walaasheen tusmo sheekadan TikTok ka maqlay wiil Soomaaliya ka sheekeeyay ma fahantay I love that ana la share kareey maadaama Ramadaan ay dadada sheekada maqlina jiro marka insha Allah wa salaam asxaabta khayr idin rajeynaya assalaamu calaykum